salaan kadib caawa waxaan kormeer ku nimid degmada Yaaqshiid kormeerkaasoo ku saabsanaa sidii aan ugu kurgeli lahayn wada shaqaynta ciidanka iyo shacabka bandowgi caawa maqribkii degmada waax ka tirsan waaxda horseed waxaa lagu soo tuuray bamgacmeedkaas waxaa nooga shahiiday askari ka tirsan ciidanka booliska sida laamaha amnigu xaqiijiyeenna waxaa gacanta lagu dhigay mid ka mid ah argagixiyihii soo tuuray bamka oo la qabtay horey waa markii labaad oo isla waaxdaas lagu soo tuuro asna kii ka horreeyey waa la qabtay sida ciidanku ay noo xaqiijiyeen waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa una ammaanayaa ciidanka booliska sida wanaagsan oo ay heeganka ugu jiraan mar walba annaguna waxaan diyaar idinla nahay inaan idinku dhiirigelinno hawsha haysaan maamulka degmada iyo shacabka waxaa laga rabaa dadka ku soo dhex dhuumanaya sida hadda ay nagala shaqeeyeen in la qabto in degmooyinka kalena ay uga daydaan dad qof walba oo fal amni darro sameynaya oo ku soo dhex dhuunta shacabka annagana laga rabaa inaan iska qabanno haddaan shacabka iyo maamulka iyo ciidanka aysan wada shaqaynayna wax diidaya ma jiro maalin walba in lagu soo dhex dhuunto marka Yaaqshiid maamulkeeda iyo ciidankeedaba waa ku amaanan tahay in markii labaad qof bamgacmeed soo tuuray oo argagixisada ka tirsan ay qabtaan